Ardayda sharafta lahow, maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo mowduuc aad muhiim u ah, waana qishka imtixaanaadka. Imtixaanku waa fursad lagu qiimeynayo hadba inta uu gaarsan yahay fahamkiina maadadii aad soo barateen, mana aha keliya in la tijaabiyo xasuustiina. Laakiin waa hab kor loogu qaadayo xirfadihiina iyo aqoontiina. Dhinac kasta qishku waxa uu khilaafsan yahay akhlaaqda wanaagsan iyo diinta suuban een ku soo barbaarnay. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu ku leeyahay kitaabkiisa kuwa Alle iyo rasuul rumeeyeenow, Alle ka cabsada kana mid noqda kuwa runta sheega. Sidoo kale, rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, qofkana qiyaama naga mid maaha. Qishku wax u dhimi maayo shakhsiyadaada oo keliya, laakiin waxa uu saameynayaa sumcadda hay'adaha waxbarashada een ka tirsanahay. Ku tiirsanaashada qishka waxa ay idinka hor istaagaysaa fahanka dhabta ee maadada, waxay daciifinaysaa awoodiina aad ku wajihi lahaydeen culeysyada mustaqbalka. Mustaqbalka waxaa lagu dhistaa gacantaada, qishkuna marnaba ma aha wado lagu gaaro guusha dhabta ah. Sidaa darteed, dhammaanteen waxaa nagu waajiba inaan ilaalino hufnaanta iyo ammaanada. Waa inaan si adag u shaqayna si aan u gaarno ujeedooyinkeena. Guushu waxay ku timaadaa shaqo adag iyo samir, ee kuma yimaado wado qardajeexa. Sidaa darteed, waxaa idinku waajiba inaad nafsadiina ku kalsoonaataan. Mahadsanidin dhammaantiin.